taxanihii Soomaali waa walaalo iyo qormadii saddexaad gumaadkii Kalsheekh si xawli ah ayay ciidankii dawladda u soo dhex galeen tuulada Kalsheekh iyagoo oo raggii joogay ku guray iska rogooyin si degdegaana uga dhaqaaqay meel ka baxsan tuuladaasi. meel ku dhow tuuladaas ayaa miino kula kacday gaadhi beebe ah iyadoo ay ku dhinteen 8 askari oo gaadhigaasi saarnaa. sababtan awgeed ayaa raggaas loo ururiyey si loogu aargudo 8daasi askari ee miinadu la kacday. sida ku qoran warbixinta Human Rights Watch, miinooyinkan ay adeegsan jireen ciidankii Afweyne waxaa laga keeni jiray dalka Masar iyadoo aan la hubin in isla dalkaas lagu farsamayn jiray iyo in kale. inta ugu badan miinooyinkaasi waxaa dhulka ku aasi jiray ciidanka dawladda, waxay ku aasi jireen wadooyinka magaalooyinka laga soo galo oo dhan, wadooyinka taga xeryahooga, wadooyinka taga goobaha biyaha laga cabo iyo wixii la mida si ay u hakiyaan dhaqdhaqaaqyada jabhadda SNM. halista miinadaas waxa u sinaa kuwii aasay iyo kuwii loo aasay iyo dadka rayidka ahba. marar badan miinadu waxa ay la kici jirtay isla ciidankii aasay bar ka mid ah. sababtaas awgeed ayaan loo cadeyn karaynin cidda runta ah ee dhulka ku aastay miinadaasi la kacday beebeega. dabcan ninka laga awood badan yahay ayaa mar walba khaldane. waxaa dembigii miinadaasi korka laga saaray shacabkii deganaa agagaarka halka ay ku aasnayd. warbixin ay January 1989 diyaarisay hay-adda Communicate Aid Abroad ee fadhigeedu yahay Australia waxa ay sheegtay in maalin qura ay 200 oo qof ciidankii Afweyne ku xasuuqeen degmada Ceelaf Weyn kadib kolkii ay agagaarka degmadaasi miino kula kacday 2 askari. hay-adaas oo hadda magaceeda u bedeshay Oxfam Australia, warbixinteeda waxa ay ku sheegtay in wixii halkaasi ka dhacay loogu yeeri karayay hal eray oo qura, waana xasuuq. dhiigga dadka waxaa loo qubayay sida ugu macnaha daran, nafuhuna waxa ay gaadheen heer loo qurgooyo sababta ugu liidata. aanu ku noqonna Kalsheekh. kolka ay marayso meel u dhaxaysa Kalsheekh iyo Ceelaf Weyn ayaa iskarogadii dhinacyada lagala maray qoryo waaweyn oo gawaadhi saarnaa, waxaana la rogay jambigii dambe ee iskarogada oo dabcan ay dadkii saarnaayeen. si ka aradan tudaale iyo naxariisba ayaa dadkii iskarogadaas saarnaa rasaas lagu furay. maalintaasi waxaa halkaas ku qurbaxay 44 dulmane oo aan wax sharci ah la horgeyn, hadduu doono haba marooro sharcigaasi, iyada oo loo laayay si loogu aarguday 8 nin ee ay la kacday miinadii aan la hubin cidda runta ah ee dhulka ku aastay. magacyadooda waa kuwan hoos ku taxan. 14 qof ayaa ka maqan. waxaa la xasuuqay bishii August sanadkii 1988. intaan ka aqoonsanahay ama ka garan karayo waxaa anigu aan mas'uul ka ahay xafiiskan baarista xasuuqii ay geysatay dawladdii rejiimkii dalka haysan jiray. kaasna 50 ilaa 60 kun oo qof baa ku maqan. halkan la isla dhigaya anigu maan maqal weli, waxba kamaan maqal. sidaa lagu ilaawayay in weli malaha maskaxdooda ay dee sheeko kale ku maqan tahay, iyagay la u taallaa sida u fakerayaan. dee kolkaynu eegno waa la isku noqonayaa aaya in la iska yidhaahdo wax sahlan maaha waan u malaynayaa. hase ahaatee halkan waxaa noogu yimi odayaasha koonfur aan odhan karo manaaqyadooda iyo madaxdoodii, odayaashoodii, dhaqankoodii. kolkaan tusnay casharadihii xasuuqa ee ka dhacay dalkan Somaliland waxay madaxa qabsadeen iyagoo sheegaya inaanay waxaan maqal ogeyna, horena u arag, horena u maqal. kolkaa dee madax farmaasho laftiisu mudduu ka maqnaa dalka haddii uu u baahan yahay oonu tusi lahayn, haddii aan waxba ka ogeyn dama ilaa maanta sida isagu dee sheeganayo. nin arkay arrintaas iyo sidii wax ka ogaaday sidii xasuuqu uga dhacay dalkanna si hagar inaan u oran karaynin baan u malaynayaa. waxba isku noqonaya iyo Soomaaliya ma kala maarmi karto. kelmaddaasina waa kelmad actually aan oran karo waxa weeyaan yaraysi ama quursi ku ah dalkan ummadda ku nool Somaliland la yiraahdo.
iyadoo sheeko kale oo lasoo mara iyo howlo kale oo la gala aan la gaadhin ayar in la yidhaahdo waa la isku noqonayaa waxaan u malaynayaa waa hadal aan maskaxda aada u qaadan karaynin kolkaa dee hadal nin iska yidhi un baynu ahaanaysaa baan u malaynayaa dowladdeedana waxbaa isku noqonaya kamana noqon kamana suuro gashaan u malaynayaa dadka ay ummaddani dowladdani wakiilka ka tahay inay caayir kelmaddaasi colaahdeedu fududaato ma filayo wallaahi anigu isaga waxaan odhan lahaa dee warays baa malaa kaaga dhiman dalka ee soomaaliya wixii la odhan jiray iyo siday u burburtay iyo sababta keentay iyo dhibaatada ka dhacday inaad aada u hubiso oo aada u istadigaraysaa fiican baan odhan lahaa mal hadda muddo ka maqlay dalka dadka ummadda kalena waxaan u sheegi lahaa halkan somaliland la yidhaahdo sawiradii ka dhacay sawiradaanu ka hayno actually wixii ka dhacay iyo qoraalada aanu ka hayno maaha mid si hawl yar loo odhan karo soomaali ma kala maarmi karto soomaali way kala maarantay kolkii ay isdaryeeli weyday ee ay isu joojin weyday dowladdii dalka haysatay siday la damacday uun bay noqotay actually dowladdii dalka haysatay waxay la damacday in dalku kala go-o iyadaa dee khad ka dhigtay kolkii ay noqotay ummad gooni loo laynayo oo wixii waqooyi sheegtaa ay aanay ka mid ahayn ummadda soomaaliyeed iyo dowladdii dalka ka samaysnay si arxan la-aana loogu ballamiyey ciidamadii dalka joogay iyo qaxoontiyadii joogay ee la hogeeyey la yidhi laaya dhaca gooba waxaad aragtaan ummaddii agtaasi ku dhacday waxaan u malaynayaa walaahdan hadalkan yar fududa soomaaliba kala maalintadu waxaan u malaynayaa inuu meel dhexe ku dhacaya aanu gaadhaynin ummaddan maskaxdeeda waxaan odhan lahayn ummadda soomaaliya ku nool inay dowladdooda lafteeda la taliyaan oo haddii ay aqooni ka maqan tahay u sheegaan wixii ka dhacay dalka muddadii uu joogay allah u naxariistee rajiimkii maxamed siyaad bare marka hadday dib u raacaan taariikhdaas ama ay saani u fahamsan yihiin hawsha oraahda hawsha yarle kamay timaadeen baan malaynayaa weli waxa ugu dhiman aqoon baa ugu dhiman wixii dhacay iyo ummaddan dareenkeeda ummaddan somaliland joogtaana waa ta ku kaliftay inay gooni isu magacaabaan ay dowlad noqdaan gooniya oo la yidhaahdo republic of somaliland taasina waxaa keenay waxay ahayd wixii loo geystay actually kolkaa dowladnimadoodii hadday dib ula noqdeen markii horena soomaali weyn iyagaa damacsanaa dadka ku hameeyey inay 5 soomaaliyeed isu yimaadaan reer somaliland bay ahaayeen kolkii u horreysay tallaabadoodii ay qaadeen tii ay qaateen ingiriis ka qaateen intay duuduubeen xamar ku shubeen wixii ay kala kulmeenna ay noqotay ta maanta taagan magaaladan hargeysa ilaa 200 oo xabaal wadareed baa ku yaala waana wuxuu geystay rajiimkii dalkan xukumayay inta ay ka kooban tahay somalilandna meel aan magaalo aanay xabaalo wadareedyo fara badani oolini ma jirto kolka horta dee dadku inay saani isu waraystaan baa fiican haddii aanay warhaynin marka go-aan dambe ay gaari lahaayeen baan u malaynayaa ninka imika iskale soomaali ma kala maarmayso oo isku soo noqonaysaa waxaa calaa ay xaal aqoon badan baa uga dhiman wixii dhacay ee dib ha u fiirsadaan hana raadiyaan ciidama qiyaasi karto waayo magaalooyin dhan baa laga qaxay dayuuradaha lala dabagalay dadkii oo sii qaxaya odayga aan xabadiba ku dhicina ku dhintay orodkii gabadha isku go'day dayuuradihii siday u eryanayeen ku baktiday kuwa dayuuraduhu rasaastoodii laysay kolka laga yimaado kuwa ku barakacay sidii ku maqan ayaan horta tiraba iyo lahayn laakiin xabaal wadareedyada imika aanu halkan ku hayno somaliland gudaheeda
kolka la dhaafo dadkii dadkaa ku dhimanayay waxaa lagu qiyaasay 50 ilaa 60 kun oo qof. taariikhdan iyo taxanahani waxaa qoray maxamed sharmaake halkaad kala socoteenna waa Arabsiya News.